marka ugu waaweyn caawa waxa ay kala yihiin xildhibaanada labada gole ee qaarkood oo madaxda dowladda ku eedeeyay khiyaano qaran iyo in guddi ay u saareen xanibaadii garoonka Kismaayo. wararkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadeed ee dalka ay jirar gaar ah oo ka dhacaya magaalada caasimadda ee Muqdisho. nabadoon lagu dilay magaalada Muqdisho faahfaahin ka soo baxay qaabka u dhacay dilkaasi. shirarkii dowladda federaalka ka dhex jiray magaalada Nairobi loo weeciyay dhanka magaalada Addis Ababa. xubno ka mid ah maamulka Jubbaland oo ku kala xaniman magaalooyinka Kismaayo iyo weliba Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya maanta khudbad ka jeediyay shirweyne ka dhacay dalkaasi Mareykanka ayaa abaalmarin la siiyay militariga Soomaaliya amisom howlgal ka fuliyay degmada Qoryoole ee Shabeellaha Hoose. dowladda Kenya oo doonaysa inay kordhiso qaabka loo dhoofinayo qaadka loo dhoofiyo Soomaaliya. ciidamada Puntland howlgal ka dhan Al-Shabaab iyo Daacish ka sameeyay gobolka Bari. wafdi ka socda dowladda oo shir kaga qayb galay wadanka Koonfur Afrika iyo khasaaraha ka dhashay weerar ismiidaamin oo ka dhacay wadanka Syria. warshada isbuunyada Shaakir tayo iyo taabagal weeye. waa axad waana habeenimo 3-4 soo galayso u diyaar garooba wararkaas oo dhameystiran. aan ka hormaro magaalada Muqdisho goordhabeed waxaa kulan ku yeeshay xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo madaxda qaranka ee dowladda ay ku eedeeyeen khiyaano qaran. sidoo kalena xildhibaanadaas ayaa guddi u xil saaray in baaris ay ku sameeyaan xaaladda bini'aadanimo ee ka dhalatay xanibaadii garoonka Kismaayo dowladda ay ku sameysay. rijaal cabdi maxamed yaa sii dhameystiraya. kulan ballaaran oo isugu yimaadeen qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa lagu falanqeeyay xaaladaha adag ee dalku uu marayo iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay oo ay sheegeen in lagu xadgudbay dastuurka dalka u yaala iyo xayiraadii lagu sameeyay madaxweynihii hore ee dalka mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo doonayay inuu ka dhoofo magaalada Muqdisho kuna sii jeeday magaalada Kismaayo. xildhibaanadu waxay isla qiimeeyeen mas'uuliyadii loo igmaday golayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee wakiilka ka ah shacabka Soomaaliyeed waxayna isla qireen xildhibaanada inay ka gaabiyeen mas'uuliyadii ahayd korjoogteynta iyo isla xisaabtanka xukuumadda waxaana ay ku ballameen inay u istaagaan gudashada waajibaadka dastuuriga ah ee iyo madax bannaanida baarlamaanka. xildhibaanadu waxay ku doodeen qodobada dastuurka inta badanba inay baal mareen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya taasoo ay u aqoonsadeen inay tahay khiyaano qaran. qodobada ay sida gaarka u xuseen waxaa ka mid ah sarreyntii ilaalinta dastuurka dalka qodobkiisa 4 iyo qodobkiisa 87 wadajirka ummadda iyo midnimada geyga Soomaaliyeed mabaadi'da federaalka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo qaab dhismeedka dowladda dhexe ee Soomaaliya kala madax bannaanida hay'adaha dowladda iyo baarlamaanka fulinta iyo garsoorka xorriyadda isku socodka xuquuqda iyo karaamada muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay sheegeen inay dowladdu meel uga dhacday. xildhibaanadu waxay caddeeyeen in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dayacay mas'uuliyadii iyo waajibkii masiiriga ahaa ee loo doortay sida ilaalinta dastuurka iyo shuruucda dalka u yaala maadaama uu yahay madaxweynaha Soomaaliya. sidoo kalena mudanayaasha baarlamaanka waxay isla qireen in xukuumaddu ay ku guul dareysatay gudashada waajibka loo igmaday oo ay ka mid yihiin amniga iyo wadajirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dib u heshiisiinta qabyaatirka dastuurka hanaanka doorashooyinka dhamaystirka hay'adaha dastuuriga ah sida garsoorka iyo xuquuqda insaanka. xildhibaanadu waxay cambaareeyeen ku tumasho ay sheegeen in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay ku hayso sharciga cunaqabatayntii shacabka ku nool magaalada Kismaayo lagu soo rogay iyo caburinta siyaasiyiinta. waxay si gaar ah cod dheer ugu cambaareeyeen xayiraadii lagu soo rogay shacabka ku nool dowlad goboleedka Jubbaland waxaana ay ka digeen in cunaqabatayntaasi ay waxyeello u geysan karto shacabka haddii ay sii socotana xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay qaadi doonaan tilaabo sharciga waafaqsan. waa sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay markii uu soo dhamaaday kulankii ay yeesheen xildhibaanadu waxay si adag uga digayaan haddii isku socodka magaalada Kismaayo ee dhanka hawada aysan dowladdu fasixin in hanaanka dowladnimada iyo masiirka qaranka Soomaaliyeed uu meel aan wanaagsanayn ku dhammaan doono ayay sheegeen xildhibaanadu waxa ay soo saareen ugu dambeyntii baaq ku aadan waxyaabihii ay ka hadleen iyo sida loo baahan yahay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u qaadato. waxay ku baaqeen in xubnaha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ay gutaan xilkii ummadda Soomaaliyeed ay u ugmatay
ee ay u dhaarteen haddii kale talada ay ku soo celiyaan shacabka soomaaliyeed in loo saaro guddi ka kooban labada gole baaritaano ku sameeya waxyeeladii bili-aadanimo ee ka dhalatay cunaqabatayntii la saaray shacabka ku nool deegaanada maamulka jubbaland gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo in si shuruud la-aana loo qaado xayiraada iyo ciqaab wadareedka la saaray shacabka kismaayo in xuquuqda iyo maamuuska ay leeyihiin madaxdii hore ee qaranka soo martay ay tahay in aan lagu xadgudbin in shacabka ku nool gobolka banaadir jideedka loo furo si noloshooda ay u raadsadaan gabagabadii xildhibaanadu waxay soo jeediyeen in xalinta khilaafaadka ragaadiyey dalka iyo taabagelinta geedi socodka dib u heshiinta dowladda soomaaliya ay tahay mid muhiim ah oo looga baahan yahay xukuumaddu inay qaado. oo qoraalkii ka soo baxay xubnihii maanta ee xildhibaanada labada gole ee ka koobnaa ee baarlamaanka soomaaliya ee muqdisho ku shiray deetana go-aankaa soo saaray dhagaysta waxaa naga xasuusinaa falanqeyn intaa ka badan iyo xildhibaanadaas oo qaarkood aan telefoonkan ku baadigoobi doona caawa barnaamijka dhacdooyinka inaan kugu soo gudbin doono. haddaba dhinaca kale wararkii ugu dambeeya xaalada siyaasadeed dalka iyo shirar ka dhacay muqdisho ayaan markaan eegayna. iyadoo saacadihii lasoo dhaafay dalka uu galay xaalad siyaasadeed oo ka dhalatay go-aanka dowladda federaalk ee soo saartay xayiraada diyaaradaha aadaya kismaayo iyo weliba xanibaadii lagu sameeyey diyaaradii uu raaci lahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa waxaa ka abuurmay jawi siyaasadeed oo aan la qiyaasi karin halka uu ku dambeyn karo marka loo eego ficilada ka dhalatay iyo falcelinta kala duwana dhinacyada isku haya siyaasada soomaaliya. madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo shalay shir jiraad ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxay si adag kaga hadleen xaalada siyaasadeed ee dalka ayagoo ku eedeeyay dowladda federaalka inay ku xadgudbeen dastuurka iyo sharciga islamarkaana ay qaadeen tallaabooyin aan habbooneyn oo keeni karta isku dhac. inkastoo ilaa hadda dowladda federaalka soomaaliya aanay si rasmi kaga hadl xaalada siyaasadeed iyo walaaca kasoo yeeraya madaxweynayaashii hore, haddana waxaa soconaya kulamo gaargaara oo la xiriira arintan iyo weliba qaabka loogu falceliyey. ilo kala duwan ayaa waxaa sheegaya in saacadaha soo socda ay kulamo ay yeelan doonaan kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo gudoomiyaha aqalka sare ayagoona ka hadli doona ama si gaara kaga shiri doona xaalada siyaasadeed kasoo korortay caasimada soomaaliya ee muqdisho. wararka qaar ayaa sheegaya inuu jiro wadatashi ay lahaayeen gudoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya la xiriira arrintan taagan islamarkaana ay dadaal u geli doonaan xal u raadinta sida xiisadani loo qaboojin lahaa. wakiilada beesha caalamka oo ayna fadhigoodu yahay xerada xalana ayaa ayna si dhow ula socda xaalada siyaasadeed ee soo korortay, waxaana jirin ilaa hadda wax war ah oo kasoo baxay wakiilada beesha caalamka. waxaana jirta hadalhayn ah in laga yaabo in shirka madasha iskaashiga soomaaliya oo lagu waday bisha 2 Oktoobar in ka dhaco magaalada muqdisho in dib loo dhigo sababo la xiriira xiisada siyaasadeed hadda ka taagan caasimada soomaaliya. dhinaca kale waxa ayna jirta wada hadallo kala duwan oo ay leeyihiin axsaabta siyaasadeed, waxaana hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ka soconaya kulamo aan kala gool lahayn. waxaana la sheegaya in maanta wada hadallo dhanka qadka telefoonka ay wada qaateen madaxweynayaashii hore ee Puntland iyo weliba Jubbaland oo ay ka wada hadleen arrintan taagan iyo weliba ka qaybgalka munaasabada caleemasaarka oo ayna weli meesheeda oo aan la shaacin in dib u dhacday iyo in kale. sidoo kale go-aanka xukuumadda ay soo saartay ku saabsan xayiraada 3 cisho ee la saaray diyaaradaha aadaya Kismaayo ayaa la dhaqangeliyay, mana jirto ilaa hadda diyaarad rayid oo ka baxday muqdisho ee ka degtay garoonka magaalada Kismaayo, taas oo la micnaa in go-aanka dowladda la dhaqangeliyay dowladuna ay qorsheynayso inay baajiso xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland ee lagu waday 26 bishan inay ka dhacdo magaalada Kismaayo. maamulka Jubbaland ayaa weli si rasmi ah u shaacin in xafladda dhankooda ay dib u dhacday in kale, waxaana ila kala duwan oo idaacadda Risaale la hadlay oo ay sheegeen in ay suurtagal tahay in go-aanka ay dib ka soo baxaan. waxaase suurtagal ah in xafladda waqtigeeda la qabto, waxaana la filayaa sababuud hordhaca oo ka qaybgalaysa xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha Jubbaland in bari ay gaari doonaan magaalada Kismaayo, kuwaas aan la ogeyn qaabkay ku tagi doonaan. inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in xubnaha ugu badan ay gaari doonaan magaalada Nairobi, halkaas ay ka soo qaadi doonto diyaarad helicopter ah kana degi doonto garoonka magaalada Kismaayo. hadalhayn kala duwan ayaa soo baxaysa oo ku saabsan sababaha ugu weyn ee loo xayray duulimaadka magaalada Kismaayo ay tahay in
la baajiyo xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha Jubbaland uu ku beegay 26 bishan oo ah xilli la filayo in madaxweynaha Soomaaliya halka uu khudbadu ka jeediyo shirka golaha guud ee qaramada midoobay isla markaana aan filayn in madaxweynuhu iyo waliba xubnaha dawladda ay ka qayb galaan xafladda caleemasaarka hase yeeshee wafuud badan oo ah madaxweynayaashii hore xubno siyaasiyiin oo siyaasad ahaan ka soo horjeeda xukuumadda hadda jirta ayaa qorsheynaya in halka ay garaan ay kana qayb galaan xogo gaar ah heshay idaacadda Risaale waxa ay sheegayaan in madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo waliba xubnaha kale ee xisbiyada siyaasadeed ay qorsheynayaan in magaalada Muqdisho ay ka tagaan ay gaaraan magaalada Nairobi si halkaas ay kaga soo tagaan kana qayb galaan munaasabadda caleemasaarka magaalada Kismaayo xubnahaas ayaana la sheegaya in lagu soo daabuli doono diyaaradda helicopter sida ay noo xaqiijeen ila xogaal ah oo ku sugan magaalada Kismaayo wararkii ugu dambeysay magaalada Kismaayo aan ka helin waxa ay sheegayeen in halkaas ay si weyn loo adkeeyay ammaanka ciidamo badan la dhigay xaafadaha magaalada kuwaas oo baaritaano wada magaalada Kismaayo xageeda wali shirar ayaa ka soconaya magaaladaas ay leeyihiin xubnaha maamulka Jubbaland shirkan waxa looga hadlayaa go'aan ka gaarista qaabka iyo waliba xilliga la qaban doono xafladda caleemasaarka wali ma jirto go'aan ka soo baxay maamulkaas laakiin shir albaabada u xiran ayaa mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland wali ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo waxaana la filayaa saacadaha ugu soo horeysa inay soo saaraan go'aan ku saabsan waqtiga caleemasaarka iyo haddii wax iska bedeleen macluumaadinta ka badan haddii wax ku soo kordhaan saaxiibayaal wararkeena dambe aad ku maqli doontaan nabadoon ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho faafaaye ka soo baxaysa dabley baskoolada ku hubeysan ayaa duhurnimadii maanta waxay xaafadda suuq bacaad ee degmada Yaaqshiid gobolka Banaadir ay ku dileen nabadoon caan ah oo deegaankaasi si weyn looga yaqaan ayadana dableyda goobtan ay ka baxsatay dilka nabadoonka u geysatay nabadoonka la dilay ayaa waxa lagu magacaabay jiray nabadoon Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle oo ku magac dheeraa nabadoon qolosh waxaana la sheegayaa in xilliga la dilayay uu fadhiyo goob ganacsi oo ku taala meel u dhow laanta suuqbacaad dilka kadib waxa goobtaasi tagay ehelada marxuumka la dilay iyo waliba ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ku sugan laanta suuqbacaad waxaana la sheegayaa in ciidamadu ay sameeyeen howlgal aan micno badan ku dhisneen oo wax natiijaan ka soo bixin magaalada Muqdisho waxaa mararka qaar ka dhacay dilal loo geysto askarta mas'uuliyiin ka tirsan dawladda nabadoon caan ah iyo waliba dadka kale waxgal ku ah bulshada mararka qaarna dilalkaas waxaa mas'uuliyadooda sheegta ururka al-shabaab wararka kale eega shirarkii ka dhici jiray magaalada Nairobi ee looga hadli jiray arrimaha Soomaaliya ayaa marka la sheegaya in loo wareejiyay dhanka magaalada Addis Ababa oo hadda kadib ay ka dhici doonaan Cabdiqaadir Jakarta ee warbixinta warkireegaya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxa uu si rasmi ah uga furay aqoon isweydaarsi ku saabsan habka ay Soomaaliya u yeelan lahayd xogkeediya ganacsi aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa ka qayb galay maareeyaha dekedda magaalada Muqdisho mas'uuliyiin ka socota rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliya iyo wasaaradda ganacsiga warshadaha hormuud ka yahay ama hormuud ka ahayd abaabulka iyo istubaridda shirkaas aqoon isweydaarsigan oo socon doona 2 cisho ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda ganacsiga ee warshadaha ee IFC oo ka mid ah bangiga adduunka waxaana lagu qabtay xarunta dalka Itoobiya ee Addis Ababa wasiirka oo khudbad dheer ka jeediyay kulankaas ayaa ku dheeraaday muhiimadda aqoon isweydaarsigan uu leeyahay dalka iyo kaalinta uu ka qaadan karo dhiirigelinta maalgashiga daahfurnaanta ganacsiga iyo waliba xog isweydaarsiga hay'adaha dawladda iyo sidoo kale rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo guud ahaanba ganacsiga Soomaaliyeed wasiirka ayaa sidoo kale xusay in xogkeediyahan si fudud ay uga daalacan karaan daneeyayaasha Soomaaliya xogaha iyo shuruucda ganacsi ee Soomaaliya si ugu fududaato inay dalka ganacsi ay ka sameystaan aqoon isweydaarsigan oo ay bixinayeen khabiiro ka socday bangiga adduunka ahaa mid lagu faahfaahinayay habka uu ku shaqeeyo xogkeediyahan iyo faa'iido laga dhaxli karo marka la sameeyo ayaa si habsami ah waxa uu uga socdaa caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa shirkaan ee wasaaradda ganacsiga warshadaha xukuumadda Soomaaliya ee ka qabatay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa u muuqda in shirkii dawladda federaalka Soomaaliya ee hore lagu qaban jiray Nairobi loo waciyay dhinaca Addis Ababa waxaana talaabadaas loo aaneynayaa khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kaas oo markaas sal ku haya muranka ee Kenya gelisay qayb ka mid ah badeena Soomaaliya
warkii fidnimo ayaa saaxiib al dhegeysanaysan goordhow warka dibadda ayna eegi doonaa khasaare ka dhashay weerar ismiidaamin oo Syria ka dhacay hase yeeshee ciidamada dowladda Kenya waxay doonaysaa in ay kordhiso qaadka Soomaaliya ay u dhoofiso wax maxamed ayaa warkan faahfaahinaysa hay-adda cuntada iyo beeraha ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegtay inay doonayso in la kordhiyo suuqyada qaadka ee dalka Kenya isla markaana la gaarsiiyo meelo hor leh guddi ka socda hay-addaasi ayaa maanta oo Talaado ah la kulmi doona guddiga beeralayda qaadka dhoofisa waxayna kala hadlayaan sidii looga caawin lahaa suuqyo cusub iyo xoojinta kuwa hadda jira 90% qaadka ka soo baxa Kenya waxaa loo soo dhoofiyaa Soomaaliya waxaana maalintii lagu sheegaa 50 tan oo jaad ah xog ay baahisay hay-adda xisaabaadka guud ee Kenya ayay ku sheegtay in qaadka Soomaaliya loo dhoofiyo ee dowladda Kenya ay ka heshay lacag dhan 150 milyan oo dollarka Mareykanka ah sanadkii la soo dhaafay wargeyska Business Daily lagu magacaabay ka soo baxa Kenya ayaa sheegay in suuqyada kale ee ay Kenya haysato ay qaataan 4 tan oo kali ah toddobaadkii oo dhan halka Soomaaliya ay maalintiiba qaadato 50 tan oo qaad ah wasiirka ganacsiga ee dalka Kenya Badar Muya ayaa sheegay in wasaaraddiisu qorshaha qaranka ay ku dartay miisaaniyadda dowladda ay ka hesho qaadka dhoofintiisa warbixinta ugu dambaysa warka caabara khasaare ayaa ka dhashay weerar ismiidaamin ayaa ka dhacay wadankaasi Syria ugu yaraan 5 qof rayid ayaa lagu dilay 12 kan oo ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay waxa uu ka dhacay waqooyi galbeed wadankaasi Syria weerarkan gaariga loo adeegsaday ayaa waxa ku qarxay goob dad badan ay ku sugnaayeen oo ku taala magaalada ama afafka hore ee bartamaha wadankaasi Syria qaraxan ayaa sidoo kale sababay khasaaraha hantiyadeed oo goob ganacsi oo waaweyn ayaa halkaas ku burburay in ka badan 30 sano oo uu socday ololaha ka dhanka kooxaha argagixisada ee Turkiga PKK iyo waliba kuwa kale ka dagaalamaya hadda wali waxa soconaya awoodda kooxahaasi ay ku leeyeen wadanka Syria iyo waliba qaraxyada halka ay ka geedsanayaan bishii Janaayo 2017 Turkiga waxa uu bilaabay howlgallo military oo waaweyn oo kaga soo horjeeda kooxahan inkastoo kooxahan PKK ay taageero ka heleen wadamada reer galbeedka warbixinta ayna ugu dambeysay warka caawa midnimo AC and